Bismillahirrahmanirrahim. NetBeans waa kana markii la soo kiciyo waxa ku soo kacaa sida tan. Meeshan waxaa loo yaqaanaa projects. Waxaa galaya meeshan projectyaashaada inta xabba ay yihiin ama project walba samaysid. Meeshan ku xigto waa functions waaye oo laga heli karo new file, new project, open project hore u jiray, save all, undo, redo. Okay, marka la rangareynayo marka la rabo in la dhaho run project waxaa loo isticmaali karaa laba qaab. F6 adigoo riixayo F6 adoo keyboardkaada ka taabanayo functionska loo yaqaano F6 ama waxaa meeshan aad click ku siin kartaa playda u eg. Wuxuu kaloo leeyahay menu state. Casharkeena ugu horeeya waxaa waaye sidee loo soo daawacaa hello UBD ama hello United Programmers and Designers. Bismillah, file, new project, Java application dooro. Next, maxaa waaye applicationkaaga magaciisa sheeg. Waxaa waaye first project iska dhahno first project. Next, finish. Okay, waa kana projectiga markuu soo baxo waa la yaabay waxaan hore already code ku qoran, waxyaaba ku qoran meel waxaan ka bilaaway ma garanaysid. Okay, aan ku kala sharaxa. Package-keena waxaa la first project. Author-ka aan isticmaalayna waa Cajrus. Okay, haddaad aragtid mar qoraal ka bilaabanayo backslash star kuna dhamaanayo star backslash, micnaheedu waxaa waaye qoraalkaas inta meeshaas uu ku dhex jiro wax micne ma sameynayo, waa qoraal caadi loo soo bandhigay. Okay, waa iska delete kartaa. Kana sidoo kale haddaad aragtid waa iska delete kartaa. Okay, kan iga delete. Kan aniga ayaa meesha ku qortay si aan wax idinku fahansiiyo. Public class first project. Okay, meeshaan uu classkeena ka bilaabana marka meeshaan ayuu ka furmayaa wuxuuna ku dhamaanayaa meeshaan end class iyo open class. Okay, meeshaan aan dhahno open class. Meeshaan ayuu classkeena ka furmayaa. Public static void main string arguments. Waxaa waaye main method begins execution of Java application. Waa meesha uu ka kacayo ama ka bilaabanayo in uu waxa ku soo bandhigo. Asagana waxa u furmayo asagana qoysa u furmayo end method main. Meeshaan ayuu asagana ku dhamaanayaa. Marka waxaa rajeynayaa in la fahmay sharaxaada. Marka hadda waxaa rajeynayaa inaan soo daawacno hello world-keena ugu horeeyay. System.out.print hello world. Bismillah. Soo yaradaha hello world waa kana. Okay, meeshaan problem ayaa jiro. Problemkaas oo ah hello world build successful. Waa la isku dhex daray wixii dhan waa la isku wada qasay. Marka waxaa u baahanahay si aan meeshaas ugu taxadaro system.out.print ln raasina. Marka automatically hadirtaan new line ayaa waxaa lagu soo qorayaa hadalkaagii ahay hello world. Okay, hello world. Okay, meeshaan waxaa rabna ka dhigana ka waran haddii aad ka tago hal xab calaamadoo kale waxaa laga soo sheegaa qalad ayaa jiro unclosed string literal. Okay, calaamadan haddii inta ka bilaabato waxaa qasab in intan ay ku dhamaato. Okay, hello world. Okay, hadirtaan aan ka dhigno inaan soo daawacno assalaamu calaykum United ama UBD. Okay, haddana aan fiirino
automatically wuxuu noo soo daawacaa assalaamu calaykum UPD. Okay, sidee farta loo weyneeyaa? Sida fartaada marka inay kusoo muuqato aa u baahan tahay tools, option, meeshaan waxaa ku qoran font, color, okay, default. Meeshaan farta alaala farta aad doorato meeshaan ka dooran kartaa. hadda waxaa isticmaalaya aniga 13. okay, ii weyneey si aa u wada aragno 14. okay, okay, waxyar ay isbedeshay. haddii ka waran aa u baahdo inaad soo daawaco layman badan sida line badan, system.out.print ln وعليكم السلام ardayda. okay, every statement maxaa waa in u dambeeya semicolon. assalaamu calaykum UPD, وعليكم السلام ardayda. okay, automatically sidaan u sheekaysan karaa. haddii aa u baahdo waxaa kaloo sameyn karaa inaan soo koobiyeeyo qoraalkan, right click, copy, automatically aa u paste gareeyo meeshaan paste. okay, maxaa dhacay haddii aan ka tago new line ama ln? haddii aan ka tago warkii oo dhan waa isku wada dhex qasmayaan. waan idin salaamay, assalaamu calaykum UPD, وعليكم السلام ardayda. waan idin salaamay isku daba qabtay. I hope so inaad fahanteen sida mainka loogu shaqaysiiyo ama wax loogu soo qoro. okay, waxaa arki doonaa anagoo mainkeena isticmaalayna inaan xisaabaad ka shaqeyn karno. wabillahi tawfiiq. waa inoo cashir.